kulanti wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada saaxiibayaal warka halku dhig news qodobada ku daawa doontaana waxa ugu dooroon maamulka Puntland oo saakay xukunkii qisaasta ahay ku fuliyay ragii kufsiga iyo dilka iskugu diray gabadhii yareed Caashe Ilyas Abdulshiid Janan oo ka jawaabay dalabkii reer Mandheere ahaa inuu ka baxo magaaladooda isagoo sheegay war aad u culus ciidamada taabacsan Axmed Madoobe oo dowladtus aan horey loo arag ka sameeyay duleedka Dhoble fariin u diray dadka diidan Jubbaland oo xubaysan oo Muqdisho xalay ku dishay gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Hodan Masar oo dhexdhexaadinaysa Xamaas iyo Israa'iil iyo guddiga soo xilista baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed oo lagu dhawaaqay haddii aan ku cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelka soo gelino taariikhdu waxay tahay 11 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal markaana aan ku bilowna Puntland waxa saakay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland lagu toogtay saddex xukumoon oo lagu helay in ka dambeeyeen kufsi iyo dil iskugu daray gabadhii yareed Caashe Ilyas falkan oo gaalkacyo ka dhacay 2 Febraayo sanadkii 2019 ayaa waxa aad uga falceliyay shacabka Soomaaliyeed ee dunida daafihiida ku kala sugan halka lagu tooganayay saakay xubnaha waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin sarsare oo kamid ah maamulka Puntland saraakiisha ciidamada waalidka Caashe Ilyas iyo dad shacab oo aad u fara badan xukunkan ayaa horey waxa u shaaciyay maamulka Puntland waxaana ay sheegeen xukunkaasi uu dhacayo 11 bisha Febraayo oo maanta ku beegan xeerlaaliyaha guud ee maamulkaasi Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa 12 bishii hore sheegay in raggan la toogan doono maanta isagoo inta ku daray inay gudbisay xeerlaalinta galka fulinta xukunka si loo qasaaso saddexda xukumoon kuwaas oo kala ah magacyadooda Cabdishakuur Maxamed Dige Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame raggan ayaa 12 May 2019 waxa xukun dilaa ku riday maxkamadda darajada koobaad ee Garowe iyadoona xukunkaasi 30 Juun ay ku raacday midda racfaanka Caashe Ilyas ayaa bishii February ee sanadkii la soo dhaafay 2019 la iskugu daray kufsi iyo dil waxaana dhacdadaasi si weyn u taabatay guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo ka dhidhiyay falkaasi sidoo kale ehelka gabadhan ayaa iskaga cararay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dhankeeda waqooyi kadib markii sida ay sheegeen ehelka loogu hanjabay in la dilayo waxayna haatan ku nool yihiin dalka Itoobiya markaana Jubbaland ciidamada taabacsan Axmed Madoobe ayaa dowladtus aan horey loo arag ku sameeyay duleedka Dhoble fariin u diray dadka diidan maamulkaasi dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ku soo bandhigeen ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulkaasi kuwaas oo maalmahan howlgalo kala duwan ka waday tuulooyinka hoostaga Dhoble ciidamadan ayaa iskugu jiray booliis nabad sugid iyo kuwa daraawiishta Jubbaland waxaana saraakiisha hogaaminaysay sheegeen inay u diyaarsan yihiin la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab iyo cid kastoo cadow ku ah maamulka Jubbaland sida ay hadalka u dhigeen taliyaha degmada Dhoble gaashaan la dhaxay Heybe Axmed Cabdullaahi oo ciidamada kula hadlayay duleedka Dhoble ayaa waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab iyo xoreynta deegaana ka maqan gacanta maamulka Jubbaland dowladtuska ciidamada ka tirsan Jubbaland ay ku soo bandhigeen degmada Dhoble ayaa wuxuu soo aadaysaa xilli xiisad u dhaxaysa dowladda iyo Jubbaland ay ka taagan tahay degmooyinka Balada Xaawo Doolow iyo Luuq oo ka tirsan gobolka Gadeey Koonfurta Soomaaliya wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan oo baxsad ka ah dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inuusan ku sugnayn magaalada Mandheera ee gudaha dalka Kenya balse uu joogo magaalada Balada Xaawo ee gobolka Gadeey Janan oo u warramay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in isaga iyo ciidamadu hogaaminayo ay dhinac ka joogaan magaalada Balada Xaawo ay ku sugan yihiin ciidamadii dowladda federaalka ay dhawaan geysay degmooyinka gobolka Gadeey Cabdirashiid Janan ayaa sidoo kale sheegay in aysan wax dhibaato ah ku jirin inuu tago dalka Kenya markii uu doonana u tagi doono xitaa magaalada caasimadda ee Nairobi Janan ayaa carabka ku adkeeyay inuusan haatan joogin meel ka tirsan Kenya ee uu ku sugan yahay gudaha Soomaaliya gaar ahaan Balada Xaawo sidoo kale waxa uu sheegay inuusan doonayn in dowladaha dariska ah ee Soomaaliya iyo Kenya ay madaxiisa iskula dhacaan ugu dambeyntii wasiir Janan waxa uu sheegay in haatan ay isku meel ku sugan yihiin madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo saraakiil dhowr ah reer Jubbaland ah hadafkoodu inuu yahay in ay soo cishadaan gacan ku haynta degmooyinka iyo deegaanada gobolka Gadeey ee dowladdu kala wareegtay
hadalka wasiir janan ayaa ku soo aadaya iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Mandheera xildhibaanada iyo senatarada laga soo doortay magaaladaas oo shalay shir jir ay ku qabtay Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxa ay ka hadleen xiisada ka taagan halkaasi ugu horeyn mas'uuliyiintani ayaa ugu baaqay dowladda Kenya in wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa ay ka saarto hoteelada ay sheegeen inay ka degan yihiin magaalada Mandheera oo ka tirsan gobolka waqooyi bari dalkaasi sidoo kale senatarada iyo xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda ayaa ku eedeeyay wasiir Janan iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland inay qalqal amni ka wadaan magaalada Mandheera isla markaana ay la soo galeen hub iyo ciidan siday hadalka u dhigeen dhankiisa gudoomiyaha ismaamulka Mandheera Cali Roobo ayaa sheegay in mas'uuliyiinta iyo ciidamada maamulka Jubbaland ay degmadiisa soo galeen markii dowladda Soomaaliya ay la wareegtay degmooyinka Dolow iyo Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gado xiisada u dhaxaysa Jubbaland iyo dowladda ayaa maalmihii u dambeeyay cirka isku shareertay kadib markii dowladda Soomaaliya ciidamo ay ka daabashay Muqdisho ay ku qabsatay gebi ahaanba gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya markaana Muqdisho rag hubeysan ayaa xaafadda Siigaale waxay xalay ku dileen gudoomiye laameed ka tirsanaa maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyagoo dilka kadib goobta iskaga cararay dilka ayaa dhacay markii laga soo baxay salaadii maghrib waxaana gudoomiye laameed kala dilay lagu magacaabi jiray Liibaan Qiyaamo sida ay sheegeen dadka yaqaana goobjoogayaasha ayaa waxay dhankooda sheegeen in dilka kadib ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda kuwaas oo meedka mas'uulka la dilay u qaaday xarunta dambi baarista CID-da sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada ay sameeyeen howlgal ay ku baadagoobayeen dadkii ka dambeeyay dilka gudoomiye laameedka balse aan weli dad loo qaban waxaa sidoo kale weli dilkiisa ka hadal maamulka degmada Hodan goobta dilku ka dhacay ayaa horey waxaa lagu dilay kaaliyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdullaahi Xasan Canshuur xeeraliye ku-xigeenkii qaranka Maxamed Cabdiraxmaan saraakiil iyo gudoomiye laameedyo kale guddiga soo xulista baarlamaanka koonfur galbeed ayaa lagu dhawaaqay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigarin ayaa magacaabay guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed xubnaha guddigan oo ka kooban 12 xubnood ayaa waxay kala yihiin gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn iyo 8 xubnood oo kamid ah guddiga soo xulaya baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed guddiga ayaa waxay ka shaqeyn doonaan sidii ay u soo xuli lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed oo ka koobnaan doona 95 mudane agaasimaha warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed Maxamed Cali Ibrahim ayaa warbaahinta u akhriyay xubnaha guddiga ee uu ku dhawaaqay Cabdicasiis Laftigarin ugu dambeyntii dowladda Masar ayaa dhexdhexaadinaysa Xamaas iyo Israa'iil wafdi ka socda dowladda Masar ayaa isku dayay inay qaboojiyaan colaadda ka taagan marinka Gaza ayaa maanta talaada halkaasi gaaray sida uu wakaalada wararka FB u xaqiijiyeen ila wareedyo ka tirsan waaxda ammaanka ururka Xamaas socdaalka wafdigan ayaa imaanaya kadib markii Israa'iil ay mar kale duqeysay magaalada Gaza taasoo kaga jawaabaysay gantaalla halkaasi looga soo tuuray Masar ayaa in muddo ahayd dhexdhexaadiyaha Israa'iil ururka Xamaas oo gacanta ku haya maamulka marinka Gaza laakiin waxa faahfaahina lagama bixin booqashadan ay wafdiga Masar ku tageen Gaza ciidamada Israa'iil ayaa qoraal soo saareen ku sheegay in saacadii hore shalay ay diyaaradahoodu beegsadeen goobo ay leedahay Xamaas oo ku yaala koonfurta marinka Gaza waxay sheegeen goobaha la weeraray ay ku jirto xirada tababarka Xamaas iyo kaabayaal military oo ay leedahay Xamaas ma jiro wax war oo ka soo baxay ururka Xamaas oo ku aadan duqeymahan habeenkii Axad ahayd ayaa gantaalo laga soo riday Gaza waxaa lagu garaacay koonfurta Israa'iil taasoo keentay in qalabka diga gantaalaha ay qeyliyaan isla markaana kumanaan dad ah ku qasabtay inay aadaan goobaha looga dhunto bambaanooyinka daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen hal ku dhig news haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe